السلام عليكم أصحابي وعيد مدة سلامي مركلة iyo exercise ka kusoo dhawaada channelkeena caafimaadka iyo menopause kaliya ma ahan kan dadku dhan u fiican yahay exercise nin iyo naag yar iyo weynba dhabar xanuun kulligeena waana soo maraaya marka waxaa fiican markastaba inaan wada sameyno dhabar xanuunka oo exercise kiisa murqaheena haddaanan annaga dhisin ma dhismaayaan way dabcayaan markaasaa xanuun ma socon karno lugihii way xanuunayaan maxoogii way xanuunayaan meel walba garbaha xanuunkooda murqaha meel kasta waay murqaha ay ku jiraan inaan exercise sameyno aan adkeyno joogtana aan u wadno waay waxaan marka si aadan mar kastaba noola socoto fadlan subscribe saar meesha muxuu gambaleelaha yar dhagsi si aadan u gafin marka haddeertan exercise-ka aan bilowno exercise waxyaabo kale u fiican yahay oo kale muxuu ahaaye oo dhabar xanuunka kaliya ma ahan murqaha oo dhan u fiican yahay oo qaybta dambe ah dadka kaadida kasoo fakanaysa muxuu ahaaye qaarkood pelvic exercise camal waa laakiin ma ahan xoogo uu ka duwan laakiin uu u fiican yahay qaybtaas oo dhan saa murqahan intood markaad xoog u yeesho dhabarka oo dhan ayaa muxuu ahaaye xoog kuugu yeelanaya adiga dhan waxaad dareemaysaa inaad muxuu ahaaye murqahaaga ay dhismaayeen marka kusoo dadaal marka hadda maxaan sameyneynaa marka ugu horeyso waxaan sameyneyno waxaa waaye oo aan ku bilaabayno dhabar xanuunka soo seexo markaad seexato dhabarka sida kala jiidkiisa ayaan sameyneynaa waxaa waaye tanaytood adoo muxuu ahay labada lugood saa intaa u kala dhigtid mar walbaba saan aad sameynaysaa marka ugu horeyso waxaa waaye kan waxaa lahaa pelvic tilt waxaa sidaan kuu sheegayo kale adoo dhabar daaca haddaad leedahay dhabarkaada gacnaha geli waxaad dareemaysaa meeshaan sinahanaad kor usoo qaadaysaa intaad muxuu ahay meesha hoosena soo dhuuji sinaha kor usoo qaad marka meeshaan haddaa gacnaha gelis dhabarka hoose u riixmaayo markaa kan kor usoo qaadid intaad horbir sinahana kor usoo qaadaysaa tartiib kor usoo qaad 2 jeer kor waxaa 1 2 3 4 5 6 7 ilaa 10 ayaa haynaysa dhig taas waa midda koowaad pelvic tiltaan ayaa usoo gudinaysaa dhag muxuu neeftan ha isku celinin markaad sameynaysid tartiib u samee haye tan labaad ani kulli ma wada sameynaya hal idin tusaaya kaliya mar tan labaad oo haddana waxaa waaye pelvic kanaytood kan aad u kor u qaadaysid waaye oo kor aad u qaadaysid tartiiba kor u qaadaysa adiga dhan oo kor u qaada jilbahaagana saas ay yihiin kor u qaad meeshaan inay saan ahaato waaye markay sida mar walbaba intana dhuuji caloosha saan usoo dhuuji meesha hoose dhuuji murqahaasaytood ilaa intaad hayn kartid 1 2 ilaa 10 second intaad hayn kartid 2 second intaad hayn kartid aada kuugu fiican yahay kanaytood tartiibaa dhulka u dhigaysaa markaad dhigaysa tartiib hal mar dug ha siinin tartiib dhulka saas u dhig taas waa tan labaad oo dhabarka muxuu ahaye u fiican jimicsigiisa kan u fiican waaye tan saddexaad tan waxaa waaye adoo kadaloo u fadhiya camal waaye laakiin lugtaanayto intaasaan usoo qaado ayaa lugta kale aa kor saaraysaa tan oo midigtaan soo qaada tan bidixdaan kor saaraya tan wuxuu u fiican yahay meeshaanayto simahaanayto ayuu u fiican yahay markaasaan sameynaysid marka inta ha qabanin jilibka ha qabanin intaa qabanaysaa soo jiidaysa waxaa ka dareemaysaa raaxo marka kan muhiim waay aada u fiiri tan koowaad haddii aad xanuun iska dareento aadan isku arki jirin fadlan ha sameynin aniga dhakhtar ma ihi marka saas u samee dhig tan kale tan oo bidixdaa soo qaad midigta korka ka saar ayaa sidii inta kasoo qaba inta ha ka qaban inta jilbaha hadday jilba xanuun aa qabto uma fiicno saan usoo qaad marka kan aad waxaa ka dareemaysaa sinaha hadday ku xanuunayaan haddii sciatica aa qabtid dhabar xanuunka wax badanay u fiicanta saan usoo qaad kan kala jiidaa dhahaa murqaha saan loo kala jiidayo haytaan kale iyadana tartiib intaa labada gacmood saan dhulka u dhigatid waxaa sameynaysaa gacnaha dhaqaajinin gacnaha dhigto saan intaa u kala dhigtid saan u kala dhig hay labada lugood israac saan u dhig saas u dhig muxuu ahaa saan adigana garabkaan meesha ha yaalo laakiin inta saan usoo jiid meeshaas waxaa ka dareemaysaa dhabarka inuu inta kala jiidmaayo macaan ayaaba ka dareemaysaa saas u kala jiid ilaa 10 second hay dhinaca kale haddana sidii oo kale tartiib ilaa 10 second aniga 10 second ma haynin hadeertaan laakiin saan oo kale markaa sameynaysid 10 second waaye halkii dhinaca tan kale hadda aan sameyn doono waxaa la dhahaa
twist body twist markaan intuu dadaa muxuu ahaa samaynaysid saan inta u samayso lugtaan intuu lugtaan aad dhigto tan kale saan usoo jiid saan u samee waa sinti ayaa ka dareemaysaa maxoogana waa dabcaya maxoogaas kagay saan maasha allah tanaytooda walaa aad u fiican anaa maxog xanuun aan qabin maxog xanuun waa qabi jira aniga laakiin hadda waa ka reesta alxamdulillah sidaan exercise-kan u sameynaya laakiin saan u samee waxaan intooda dhan waxaa waay maxooga u fiican yahay maxoogaada tartiiba u kala jiidaysaa hayteeda kale mararka qaar maaragtay maxog xanuunka waxa keeni karo waxyaabo badan iska fiiri haddii wax kugu soo booday ow yahay saas oo kale kaliyaha inay dhagax kaaga jiro laga yaabo ani laakiin dhakhtar ma ihin waxyaabahan waxyaabo oo aniga le aan samaysto waaye hadda waxaan sameynaynaa full body stretch jirko dhan aan kala jiidaynaa hadda jilbahaa saas u dhigato oo muxuu ahaa gacmahaadan gadaal guri weyn hadaa qabta ani gurigeyga yariis waaye birsadeyda yariis waaye saan iskala jiid inta iskala jiidi kartid iskala jiid waxaad dareemaysaaba kala jiidkaasaytood lugahana waa jiidaysaa gacmaha waa jiidaysaa saa intaad jiidi kartid jiid oo iska dareemaysaa haddaa xanuun aad dareentid oodan qabi jirin fadlan ha sameynin haddii xanuuno aad qabtidna dhakhtarkaaga kala hadal inaad sameyn kartid iyo in kale ani dhakhtar maihi dhakhtarkaaga kala hadal haddii xanuun aad qabtid laakiin dhabar xanuunka saan aad ugu fiican yahay dhabar xanuun aan qabi jiro dhabar xanuunka waa iga ba'ay haye muxuu ahaa waxyaabo badan oo aan qabi jiro ayaa iga baabaa marka aniga dhakhtar ma ihi wuxuu ahaa fadlan dhakhtarkiina kala hadla haddii xanuuno oo horey aad u qabi jirin aad iska aragtid oo exercise-ka jooji dhakhtarkaaga kala hadal hana sameynin mar kale laakiin markasto exercise-kan wuu ku fiican yahay oo sameyso hayteeda kale si aadan u gafin waxaa saaraysaa gambaleelaha yar dhag noosii si aan aad ula socoto mar kasta waxaan anaga sameynayno oosan kuu gafin waxyaabo badan aan soo gelinayna oo exercise badan ku saabsan oo qoorta iyo garbaha iyo weli sooma gelin iyo jilbaha iyo ku saabsan soo dhawaada asalaamu calaykum